Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh ee ku xiran Somali Business. Maanta barnaamijkeena waxaan oga hadli doonaa saameynta dhaqaale ee uu sababay coronavirus. Faafitaanka coronavirus ayaa dhibaato weyn u geystay nolosha maalinlaha ah ee dunida, taasoo gebi ahaanba hakad gelisay howlihii kala duwanaa ee la qaban jiray. Dugsiyadii iyo jaamacadihii adduunka oo dhan ayaa casharadii la hakiyay. Horyaaladii ciyaaraha oo dib u dhigay ciyaarahoodii, iyo musharaxiintii oo baajiyay howlahoodii ololaha doorashada. Shirarkii waaweynaa ee caalamiga ahaa ee la qaban jiray ayaa baaqday. Saameynta dhaqaale uu yeeshay caabuqan ayaa balaayiin dollar kor u dhaafaysa. Saameynta ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. Facebook waxay ku dhawaaqday inay baajisay shirkeedii sanadlaha ahaa. Shirkan ayaa la filayay inay dhaqaale xooggan abuuraan, maadaama dadka ka qaybgalaya ay ku degayaan hoteelada magaalada martigelinaysa. Maqaayadaha iyo ganacsiyada kale ayaa sidoo kale faa'iido ku qaba. Markii shirarkan la qabanayo, waxaa lasoo shaqaaleysiiyaa boqolaal ama xitaa kumanaan shaqaale ah. Hadda magaalooyinkii iyo shirkadihiiba waxaa soo wajahaya dhaqaale burbur aad u xooggan. Shirarka waaweyn ee la baajiyay waxaa ka mid ah South by Southwest Austin oo lagu qabanayay Texas, Google I&O ee California, Facebook F8 oo lagu qaban rabay San Jose, iyo Mobile World Congress oo asna lagu balansanaa Barcelona, Spain. Sida hadda muuqata ayaa ah in faafidda cudurka uu hoos u dhacay gudaha dalka Shiinaha, laakiin adduunka inta kale uu dhib weyn ku hayo. Magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka, laga soo bilaabo San Francisco ilaa New York, ayaa la mamnuucay wax isku imaatin ah. Waxaa muhiim ah in laga fikiro badbaadada shacabka. COVID-19 waa cudur xun oo safmar ah. In la mamnuuco isu imaatinka ayaa noqotay mid laga wada siman yahay wadamada badankooda. In la kala fogaado ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu xakameyn karo cudurkan. Mid ka mid ah shirkadaha tiknoolajiyadda ee shirkooda u baajiyay COVID-19 dartiis ayaa ah Mobile World Congress, oo ah shirka iyo bandhigga ugu weyn mobilada. GSMA oo ah ururka soo qabanqaabiya shirka sanadlaha ee lagu qabto Barcelona ayaa 12 Febraayo ku dhawaaqay in la baajiyay shirkii wax ka yar 2 asbuuc xilligii la qorsheynayay inuu qabsoomo. Magaalada Barcelona ayaa heli jirtay lacag gaaraysa nus bilyan euro. Waxaa kasoo qaybgeli jiray marti ku dhow 100,000 oo ka kala yimid ku dhowaad 200 oo wadan, halkaasoo shaqo ay ka heli jireen shaqaalo dhan 14,000. Hadda macnaheedu waa in dhaqaalahaas dhan shirkadu soo xareyn jirtay ay weynayso. Dhaqaalaha 97% ee shirkadda ayaa ka soo xaroon jiray shirkan, taas oo wax aad looga walaaco. Halkii tigidh ayaa ahaa lacag dhan $872. Waxaa kaloo jiro shirkado kale oo dhaqaale burbur xoog leh uu soo gaaray. Sidoo kale, warka kaloo naxdinta leh ayaa ah in Austin ay kansashay xafladii South by Southwest. Xafladan sanadlaha ah oo socon jirtay 10 beri ayaa lagu soo bandhigi jiray filimada, heesaha iyo farshaxanka. Sanadkii la soo dhaafay xafladan waxaa ka soo qayb galay dad gaaraya 417,000 oo dad ah. Waa dhacdada keliya lacag aad u badan soo xareyso magaaladan Austin. Laakiin 6 Maarso ayaa lagu dhawaaqay in la baajiyay ayadoo 1 asbuuc kaliya ay ka dhiman tahay. Wada tashi dheer kadib, waxa ay noo soo baxday inaan horey loo sii wadi karin xafladda si loo badbaadiyo bulshada. Wax war kamaanan hayn ilaa 4 galabnimo ee Jimcadii, intaanan bilaabin inaan cunto u qaybino dadka isa soo xilqaamay iyo shaqaalaha South by Southwest. Labadan asbuuc ee Maarso, 3 ilaa 4 bilood dhaqaale u dhigma ayaa soo xarooda. In u dhaxayso 20 ilaa 30 kun oo dollar ayaa ahayd waxaan filaynay, laakiin hadda ma muuqato sidaa. Magaalada Austin ayaa lumin doonta dhaqaalo dhan $355 milyan oo dollar, laakiin saameynta ayay haleeli doontaa xafladda laftirkeeda, taasoo ah inay soo kabsan karin maadaama ay lumisay malaayiin dollar. Shirkadaha caymiska bixiya ma daboolaan aafada cudurrada. Soo qabanqaabiyaasha xafladda ayaa filaya
in la qaban doono sanadka 2021. Aasaasaha xafladan ayaa warbaahinta u sheegay inaysan hubin in sidan dhici doonto. Ururka ayaa la daalaa dhacayo siduu u heli lahaa ilo dhaqaale oo dheeraad ah. Meelaha mushaharka lagu bixiyo ee shirkadaha waaweyn ayaa dhammaan shaqaynayn oo kaliya ku shaqaynaya hab online ah. Ilaa hadda waxay u baahan tahay waqti ilaa inta laga qorsheynayo shir kale. Kiiskii ugu horreeyay ee cudurkan ayaa laga helay Solano 26 Febraayo. Isla maalintii ku xigtay, Facebook waxaa lagu dhawaaqay inay kansashay shirkeedii sanadlaha ahaa. Meeshan waa halka uu Mark Zuckerberg uu ku soo bandhigay xaqiiqooyinka dhabta ah ee hawshiisa. Shirka Facebook oo xoogaa ka yara horumarsan shirar kale ee shirkadaha ayaa waxaa ka soo qayb galay dad gaaraya 5,000. Waxaa lagu galayay ayaa ahayd $595. Markii la baajiyay shirkan, shirkaddu waxay ku dhawaaqday inay ku deeqi doonto lacag dhan $500,000 si ay wax ugu tarto dadka shaqadoodii ku waayay shirkan la baajiyay darteed. Facebook ayaa khasaari doona lacag dhan $12 milyan. Tan kuma jirto lacagta ku baxday shirka inuu qabsoomo iyo xitaa lacagtii la faa'iidi lahaa haddii la qabto shirkan. Ayadoo markii hore Google ay ku dhawaaqday in shirkeeda uu qabsoomi doono, ayaa ugu dambeyn kansashay shirkeeda. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gali kara in ka badan 7,000 oo qof. Lacagta ay khasaari doonto Google ayaa lagu qiyaasay $19 milyan. Shirkadda Google ayaa ku dhawaaqday in ay ugu deeqi doonto magaalada $1 milyan si ay uga caawiso ganacsiyada yaryarka ah ee magaalada. Si ka duwan shirkadaha kale, Google ayaa u celisay lacagtii laga qaaday kasoo qaybgalayaasha oo halkii tikid laga qaaday qofkii $150. Ugu dambeyntii, waaxda caafimaadka ayaa sheegay tallaabooyinkan lagu baajiyay shirarka inay hoos u dhigayso faafidda cudurka. Tan ayaa ah inay ka hortagayso dad hal mar isla wada xanuunsan lahaa oo aan loo heli lahayn badbaado caafimaad oo ku filan. Dhinaca kale, kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa sare u kac bilaabaya. Annagoo ku jirno xaalad aad u xun, haddana isu imaatin kasta, si kasta muhiim ha u ahaadee, ayaa su'aal la geliyay. Tan ugu sii daran ayaa ah walaaca la xiriira sida laga yeelayo tartanka Olombikada adduunka ee sida la qorsheeyay qabsoomi doona Juulaay dhexdeeda. Waxaa la soo jeediyay in tartanka la qabto ayadoo wax ka soo qaybgalayaal ah aysan jirin. Taasi waxay keeni kartaa in lacag dhan $850 milyan la celiyo. Laakiin sida la saadaalinayo ayaa ah in la baajin doono tartanka. Tan ayaa dhabar jab ku ah ciyaartoydii waqti dheer tababar u soo qaadanayay inay waddankooda matalaan, iyo taageerayaal badan oo daawan lahaa tartanka, iyo xitaa magaalada Tokyo laftirkeeda. Sidoo kale, waxay dharbaaxo dhaqaale ka soo gaari doontaa NBC Universal iyo shirkadda CNBC, kuwaasoo filayay inay soo xareeyaan lacag ka badan $1.2 bilyan. Qabanqaabayaasha tartanka ayaa rajo ka qaba inay wax hagaagi doonaan, laakiin aan ka war sugno siday wax noqdaan. Halkaas waxaa inoogu eg barnaamijkeena.